magaalada Muqdisho ayaa u muuqata mid isku diyaarinaysa martigelinta dagaal culus oo dhex mara ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamo taageersan musharaxiinta mucaaradka ah kana soo horjeeda muddo kororsiga dawladda. ciidamada daacadu ah Saadaq John, Yuusuf Indhacde iyo musharax Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame oo horey ugu sugnaa agaarka isgoyska kiiloomitir 4 gaar ahaan ex madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim ayaa xalay aagaasi isaga guuray. sida aan wararka ku helnay ciidamadan ka soo horjeeda dawladda ayaa waxa ay degeen aag cusubna ay ka sameysteen xaafadda Siigaale ee degmada Hodan gaar ahaan xaafadda ku dhow laamiga Maka al-Mukarrama. ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa iyana saakay lagu arkayaa aagii ay ka baxeen ciidamada Saadaq John iyo waliba Yuusuf Indhacde. ciidamadan ayaa laamiga iyo waliba goobo kaleba waxa ay ka qaadeen carro Turkiga lagu xiray iyo waliba dhagxaantii. xaafadda Siigaale iyo xaafadaha ku dhow ayaa saakay laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan waxaana dadkii halkaasi deganaa ay bilaabeen inay isaga barakacaan iyagoo ka cabsi qaba in korkooda lagu dul dagaalamo. magaalada Muqdisho qaybo kamid ah waxa ka socda barakac xoogan ay sameynayaan dadka shacabka ah waxaana laga cabsi qabaa in magaalada mar kale ay ku dagaalamaan ciidamada dawladda iyo waliba kuwa ka soo horjeeda. halkan aan ku sugannahay daawadayaal waa hoyga ku yaalo Cabdiqaasim waa gurigii ay deganaayeen General Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacde, Saadaq Cumar Xasan, Saadaq John iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame. ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa halkan saakay aroortii hore gudaha u soo galay goobahan oo idil ay la wareegeen iyadoo haatan ay ku sugan yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad. Cabshakuur Maxamed Maxamuud, warbaahinta Nation, Muqdisho.